السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال kusoo dhawaada meel kastoo aad daafaha caalamka ka joogtaan. barnaamijkeennii wax ka baro waayaha nolosha. barnaamijkeennan waxaan ku soo qaadan doonaa waraysi aan la yeeshay maamulaha iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco, Xasan Mawlid Xasan Cabdilaahi. waliid kusoo dhawo telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV iyo barnaamijka wax ka baro waayaha nolosha. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن يبقى كسودوي برنامجك عاد كوتو يا عديار إمام الكريستو كده ولا يسمعون. waatahay mawlid waan kaaga mahad caleynaa waqtigaaga qaaliga ah ee aad nasiisay iyo sida wanaagsan aad noo soo dhaweysay. waxaad iga warantaa iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco ayaad maamulo ka tahay. marka iskuulka bal taariikhdiisa kooban wax yar iga sii warbixin kooban. walaal hadii aan iskuulka taariikhda ku soo koobartay marka hore iskuulkani maraaxiil buu ku soo bilaabay. maraaxiil kala duwan ku soo bilaabay iskuulkani dhibaatooyin fara badan ayuu soo maray. maanta iskuulka waa ku shaqeynaya. iskuulka waxaa la aasaasay 3 bishii 12aad 2006 imika waxa ka qalisay 2 difacdi labaad ayaa ka baxday. waatahay mawlid waxaan kaloo ku weydiin lahaa ardayda iskuulka wax ka barata tiradoodu waa ilaa imisa. walaal hadda inta bay sheegto waxa laga yaabaa 7 baa laga yaabaa laakiin dhowr difaac way ka baxeen. waan gartay mawlid waxaan kaloo ku weydiin lahaa inama iyo hablo ay isugu jiraan. marka dhinaca badnaanta oo kale kuweeba badan ma xagga inamada badan mise hablaha. walaal iskuulku wuxuu leeyahay habliye inaba labadaba leeyahay. marka ariga waxaan ku soo kabilahay inamada ayaa badan. kaasi waxa uu ahaa maamulaha iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco oo aan markaasi waraysigaasi aan la yeeshay. sidoo kale waxaan markaa waraysi kale aan rabaa in aan waraysi la yeesho maamula ku xigeenka iskuulka. tahay walaalo ku soo dhawow barnaamijka wax ka baro waayaha nolosha iyo telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV. walaal waad mahadsantahay maxamed, aad iyo aad baad mahadsantahay. waan ku dhaway barnaamijkaaga, aad iyo aad baad mahadsantahay inaad saaka halkan nagu soo booqato. runtii dhiirigelin wanaagsan baanay u tahay ardayda iyo iskuulkaba. adigna waan ku soo dhaweynayo ka TV-ga ahaan Bulshaba. sidoo kale annaguna walaal waxaan idinka mahad celeynaa sida wanaagsan aad noo soo dhaweyseen iyo waqtigiina qaaliga ah ee aad nasiiseen. waxaa tahay maamula ku xigeenka iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco, Khadar Cabdiraxmaan. waxaan walaal ku weydiiyey aad si kooban aad iga warantaa goortii iskuulkan maxaa la aasaasay iyo taariikhdii magaranaysaa iskuulkan uu soo maray iyo dhammaan sooyaalkii nololeed ee uu iskuulkan magaranaysaa uu ku soo bilaabmay iyo maraaxishii uu markaasi uu soo maray iyo sidii uga soo tallaabsaday caqabadihii ka hor yimi oo dhan. dugsiga dhagoolayaasha Burco waxaa la aasaasay walaal 2006 bishii 3aad sida horeba uu sheegay maamul Mawlid. marka iskuulkan marxalado kala duwan buu soo maray. marxaladaha uu soo maray waxaa kamid ah waqti aanay dadka Soomaaliland aanay u baran in dadka naafada gaar ahaan dhagoolayaasha ay wax bartaan. oo marka ay dadku arkaan ardayda ay oran jireen say wax u baran karaan. laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin ardayda si wanaagsan bay wax u baranayaan. way la qabsadeen deegaanka. caqabado badan baa kaga iman jiray environmentka dadka ay la nool yihiin deegaanka oo cayo iyo waxyaabo dhibaato badan ku sameeyay jireen. laakiin iminka markay dadka barteen si wanaagsan bay ardaydu soo dhaweeyaan. ardayduna waxay la mid tahay in ardayda kale wax baranaysa iskuulada kale ku jira. marka iskuulku marxaladihii uu soo maray waqti adag bay ahayd oo runtii uu ka soo baxay. imikadan lafteeda caqabado badan baa hor yaala. iskuulka waqtigii la aasaasay intii ka dambeysay 2 difacdood baa ka baxay galaaska 8aad. imikana wali qaar baa ku jira oo iyaguna sanadka dambe nooga bixi doona sanad dugsiyeedka 2018 marka insha Allah waxaanu rajaynaynaa in ciddii kasta iskuulka wax la qabanaysa ay
iman doonto oona soo dhoweyn doonto. waa tahay axmed cabdiraxmaan walaal si wanaagsan ayaad markaasi aad noogu faahfaahisay. waxaan kaloo rabaa in aan ku weydiiyo maadaama aad ka mid tahay maamulkii iskuulka ugu sarsareeyey ardaydan bal sida ay wax u bartaan iyo sida markaasi waxbarashadooda ay ugu dadaalaan, bal maadaama aad wakhti badan iskuulkan aad ku soo guda jirteen, bal warbixin kooban taana iga sii. runtii waa su-aal wanaagsan. ardaydu se wax u barataa waxa weeye ardayda qaabka sign language-ka la yidhahda waxa lagu gudbiyaa oo luqad caalamiya international sign language baa la yidhahdaa. marka way ka duwayn xagga waxbarashada dadka dhagaha qaba, maadaama dadkan xagga dhagaha ay iyagu aanay wax maqalkoodu marka wax noqonaysaa in luqadda faraha loogu gudbiyo. luqadan waa luqad international oo dunidoo dhan ka jirta. luqadaas ayaa ardayda wax lagu baraa. marka ardaygu wax la barayo runtii waa caqabado ka duwan iyaduna sida dadka kale wax loo baro. waa ardaygu wuxuu u baahan yahay fahansiin, waqti badan buu kaa qaadanayaa, sharaxaad fara badan oo xagga faraha buu kaa qaadanayaa. marka runtii waa arrin dadaalkeeda iyo leh mudnaanteeda in la siiyo. waan gartay. waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo ardaydu tiradooda bal inaad ii sheegto ayaan doonayaa. ardayda tiradooda haatan iminka waxay maraysaa ilaa 80 ilaa 70 inta u dhaxaysa. dufcadii sanadkii dhaweed ka baxday marka, laakiin inta ardayda way isku soo daba dhacayaan oo way imanayaan iskuulka sanad dugsiyeed kasta waan qornaa. iminkana waxaan uga faa'iidaysanayaa dadka daawanaya barnaamijkan ku nool gobolkan Togdheer inay haddii ay hayaan caruur dhagala oo cusub in dugsigu u furan yahay oo la diiwaangelinayo la qaadanayo, marka inay keenaan oo ay soo diiwaangeliyaan waana qori doonaa. waan gartay. waxaan ku weydiin lahaa oo kale axmed cabdiraxmaan walaalo, iskuulka markii aad doonayseen in aad furtaan wax caqabadaah oo idinka hor yimi oo dhanka waalidka la xidhiidha oo dee tusaale ahaan inay yidhaahdaan oo kale sidee baa wax loo bari karaa dad dhegala magaranaysaa aan waxbaba maqlaynin, sidee bay ugu suurtogeli kartaa in wax la baro? taasoo kale ma idinka hortimi? si hadday idinka hortimi sidee baad u xaliseen? runtii waalidiinta qaar wax la yaaba bay ku noqotay in marka la yidhaahdo arday dhagalaaba wax la baraya, laakiin markii ardayda dugsigii timi ay la qabsadeen waxbarashadii ee ay nidaamkii arkeen si fiican bay waalidiintii u aqoonsadeen in ardaygoodu wax baran karo. waxaa dhici jirtay in ardayda xaafadda markay fadhiyaan ay arkaan walaalkooda iskuulka loo dirayo iyagoo ay cuqdad ka qaadi jireen oo odhan jireen annaga maxaa iskuulna loogu diri waayey. marka taas maanta way ka baxday. ardaydii iskuul bay yeesheen u gaara. iskuulku waa dhisme ka kooban 14 dhisme ka kooban. waxaa 8 galaasoo dhismaha, 2 office, masaajid, 4 suuli, geerkan weyn aad arkayso, beer iyo meel ku ciyaaraan intaba uu leeyahay. marka runtii wuxuu la jaan qaadayaa iskuullada caalamiga, standardka caalamiga. dadka dhagaa qaba ama dadka kale baa dhigtaan waxba iskuulkan inuu ka sarreeyo mooyaane kama hooseeyo. waan gartay. walaalo waxaan kaloo rabaa inaan ku weydiiyo iskuulka yaa maalgeliya? ma xagga dawladda ayaa markaa laga maalgeliyaa mise waxa hay'ado ayaa gacanta ku haya? runtii iskuulka si joogtaa cid u caawisaa ma jirto, laakiin marka laga tagi waayo macallimiinta qaar ayaa ka diiwaangashan wasaaradda waxbarashada, halka qaarna aanay ka diiwaangashanayn. marka macallimiinta waxoogaa gunnaa yar ayaa la siiyaa, laakiin mushaar ku filan ma haystaan. marka laakiin waxay la mid yihiin macallimiinta kale ee wasaaradda iyagu wax ka qaata si ka duwan looma gunneeyo, laakiin intaa gunnada wasaaraddu bixiso ay qaataan. marmarka qaar dowladda Soomaaliland waxa jirtay mar ay ugu deeqday kombiyuutaro marwada madaxweynaha. waxa jirtay mar ay soo booqday madaxweynuhu oo ballanqaadiyo loo sameeyey. runtii waxna way ka fuleen waxna kama fulin, laakiin marka iskuulka dowladda Soomaaliland buu ku tiirsan yahay oo runtii inkastoonan baryahan dambe aanan waxba ka arkin, laakiin wax badan intii hore la qabatay.
waan gartay dhawaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxay soo daabacday manhaj ma garanaysaa aad u wanaagsan oo tayo leh manhajkaasi ma idin soo gaadhay oo markaa ardayda wax ma ugu dhigtaan manhajkan ka dhaxeeya guud ahaan Soomaaliland ee dhawaan la soo daabacay runtii waa manhaj aad iyo aad u fiican oo wasiirkan uga mahadcelinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada Cabdullaahi Habane aad iyo aad runtii waa manhaj aad looga shaqeeyay oo ka duwan manhajkii hore loo dhigi jiray wax badan baan laga fahmi karaa khaasatan dadka dhagoolayaasha waxa aad moodaa in magaranaysaa iyaga laftooda tixgelin la siiyo saacashirada loo soo diyaariyay inkastoo aanu gudbino oo aanan cod ku gudbin laakiin farahan ku gudbinaa marka aad iyo aad buu wanaagsan runtii manhajkaas waan gartay Axmed Cabdiraxmaan waxa tahay maamulka ku-xigeenkii dugsiga marka maxaad adigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay uu ku siiyay telefishinka caalamiga ah Bulsha TV iyo barnaamijka wax ka baro waayaha nolosha maxaad codsi ahaan maxaad diri lahayd marka aad ka codsan lahayd dadka muxsiniinta iyo haday tahay dawladda iyo hay'adaha wax codsiya maxaad u dirsan lahayd adigoo ka faa'iideysanaya fursadan wala aad iyo aad baad mahadsantahay maxamedow runtii waxaan ka faa'iideysan lahaa fursadan mar kale waxaan u mahadcelinayaa telefishinka caalamiga Bulsha TV barnaamijkana yoona noqoninkii ugu horeeyay waxaan jecelnahay marar badan inaad nagu soo noqotaan waxaan uga faa'iideysanayaa walaal iskuulkan baahiyo badan baa yaala cid kasta oo iskuulka dhagoolayaasha Burco wax taraysa ama noqdo dadka ka soo jeeda gobolkan Togdheer qurba joogta ama noqdaan guud ahaanba Soomaaliland dadka ku nool ama dawladda Soomaaliland ba hay'adaha caalamiga iyo kuwa NGO-yada kuwa maxalliga dhammaan waxaan ka codsan lahaa inay iskuulkan bal hadda ay eegaan oo ay wixii caawimaad tari karayaan way dadkan disability-ga dhagoolayaasha waxay leeyihiin baahiyo gaar ah oo joogta way ka duwan dadka kale badana waxay ka soo jeedaan dad buura oo qoysas aan waxba haysan ba ka soo jeedaan badana waxa u badan yihiin agoomo qaaran hooyooyin lahayn ay u badan yihiin marka waxaan jeclaan lahaa marka qaar waxyaabaha la qaybinayo kale ama waxyaabaha macaawimo kale in lala soo socodsiyo iskuulka oo ardayda wixii laga caawin karayo laga caawiyo macallimiinta haddii ay tahay tababarada haddii ay tahay kaalmooyinka kale bilaadanimo marka xitaa imika waxa iskuulka ku soo badanaya ardaydii barakacayaasha abaaruhu saameeyeen xilliga abaaraha ay ka saareen xoolahoodii ayaa imika subax walba la qoraa runtii way isku sii badanayaan future-ka waxaan jecelahay xitaa iskuulku inuu boarding noqdo si ay u seexdaan carruurtu waxa kale oo u baahanay technical wax la yiraahdo farsamada gacanta maadaama ardayda iskuulka dhagoolayaasha markay galaaska 8aad ay ka baxaan ay u baahan yihiin farsamo bartaan waxaan jecelahay cid kasta naga caawinaysa farsamada hadii tahay xukuumadda Soomaaliland oo runtii aan mahad ballaaran u hayo madaxweynaha qaranka iyo marwadiisa wasiiradii hore iyo wasiirada imka joogaba runtii shakhsiyaad far badan oo wax badan la qabtay ku jiraan imika waxaan jecelahay wasiirka waxbarashada suuna aad iyo aad noola shaqeeya in ay halka nagala sii wadaan oo ay wixii iyaguna dadka qurba joogta iyaguna danaynayaan iskuulkan markay imaadaan iyo markay maqayn bayna nala soo xiriiraan iyadoo aan nambarada iyo ciwaanadaydu sheegi doono waa tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa maamulka ku-xigeenka iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco
tahay daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa toddobaadkan barnaamijkeennii wax ka baro waayaha nolosha oo aynu ku soo qaadanay waraysiga aan la yeelanay iskuulka dhagoolayaasha ee magaalada Burco dhinaca editinka iyo qaabaynta barnaamijku waa Khadar Cabdirasaaq Khadar Hanad dhinaca kamarada iyo sawir qaadistuna waa Axmed Shaafi intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa anigoo Maxamed Saciid Caliya oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo